Hello viewers, how are you? I hope you are fine. Today we are sharing a very sad. Sheekh Yuusuf Al-Qaradawi oo ka mid ah culimmada ugu caansan Islaamka ayaa toddobaadkan geeriyooday isagoo 96 jir ah. Saa lagu sheegay qoraal la soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee Twitter-ka. Sheekh Yuusuf Al-Qaradawi oo u dhashay dalka Masar, isla markaana ah hogaamiyaha ruuxiga ah ee ururka Ikhwaanul Muslimiin, ayaa sanadihii dambe waxa uu fadhigiisu ahaa dalka Qatar. Sheekha ayaa aad u dhaliili jiray madaxweynaha Masar Cabdifataax Asiisi. Al-Qaradawi ayaa dibad joog ahaan ugu noolaa dalka Qatar wixii ka dambeeyay markii militariga Masar ee uu hogaaminayay Asiisi ay afgamiyeen dowladda ay hogaaminayeen Ikhwaanul Muslimiinka. Al-Qaradawi ayaa waxaa la maxkamadeeyay oo xukun lagu riday isagoo ka maqan Masar. Wuxuu barnaamij caan ah ka qaban jiray telefishinka Al Jazeera, isagoo ka hadli jiray arrimo siyaasadeed oo muran badan. Waxa uu taageeray weerarada ismidaaminta Falastiiniyiinta ee ka dhanka ah Israa'iil. Wuxuu sidoo kale taageeray oo muujiyay kacdoon qeyraha ka qarxay markii Mareykanka ay duulaan ay ku qabsadeen 2003. Hase yeeshee wuxuu sidoo kale taageeray markii ururka Ikhwaanul Muslimiinku ay ka qaybgalayeen doorashooyinka dimuqraadiyadda ee Masar ka dhacay kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne Xusni Mubaarak. Al-Qaradawi waxa uu aad u dhaliili jiray kooxaha xagjiriinta ah sida kooxda Daacish. Dalalka Bahrayn, Masar, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa Al-Qaradawi ku daray liiska ururada iyo shakhsiyaadka argagixisada ee 2017 daraaddeed xilka ugu jareen Qatar. Qatar waxay beenisay eedeymahaasi. Intan ayaynu ku eegi doonaa muuqaalkeena maanta. Hadduu muuqaalka ku xiiso geliyay, naga ilaawid muuqaalka like noo saarto. Haddaad channelka cusub tahay, subscribe noo saar. Fi amaan illah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.